السلام عليكم شيخ السولي سوماها ها شيخو نين عان دليا او شينو علي لدهو بان هي waa ku salaamay ilaahay ha ku barakeeyo balaaqa ilaahay ku dhiibay شيخو laba su'aalood baan qabaa musharax baan ahay madaxweynaha Soomaaliya aan doonayaa marka haddaan musharaxiinta nahay waxa khasaba in qofku wadamada carabta iyo wadamada dariska ah xoogaa lacag ka sii qaato oo tartanka ku galo oo codadka ku iibsado aanu wadana kuma xirni laakiin haddaan barbaaraya haddaan meelaha sii maro wax ka sii helo oo dalkii aan geliyo lacagtaasi ma xaraan baa musharaxiinta dhan aan arinta ka siman su'aashayda labaad waxa weeye afartankii waa dhaafay laakiin waxaan jecelahay dhalinyarada inaan ka bixino 20 jir la fila tagtay waan sheegtaa haddaan deedayga maaragtay dhowr jeer baa been ka sheegay dambi ma iga imanaya نعم غير الله كسي ان حقيقة مسألة حكمك هذا كهرنا ما كهذا waxaan niri xukun وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sheekha waxa ku weydiinayaa sujuudda marka la sujuudsan yahay ilaahay af Soomaali ma lagu bari karaa mid kale waxaan ku weydiinayaa maryaha oo ijtimaac amal lagu sameeyo hadii lagu tukado daahir miyaa mise najaas نعم أما تنكوات مسألة واسكو خلافين علماء لكن أنا مركز توحان رجحية إن af Soomaali oo afka lagu dhawaaqin qofku soo sujuudsan wuxuu ku duceysana af Soomaali niyad inuu ka dareeriyo qofka niyad inuu ka akhriyo afkaas oo kaga dhawaaqaydin Soomaaliga uu ku duceysana haduu ducooyinka ma'thuuraadka u aqaanin taasaan rajaxiya aniga waxaan ku soo hartay masalada kale oo ah sheegto ayadana oo qaabilsan dharka oo jimaaca lagu sameeyo lagu tukan kara waxa wanaagsan in lagu tukanin maxay shubha ku jirto shubhadaas waxay tahay qofka markay istimtaac u jaraaxo ay jirto waxa imaanaya madi waxa la hayaa ragga ka yimaada dumarkaba madigaas markay khilaafka ma taagno inuu najaasa yahay nabiga kaleey salaam noo sheegay xadiiskii cali iyo qeyrkiisa qataada sidoo kale min baab awla laakiin culama waxay hadaan hubin in lagu tukan karo marka aniga waxaan yiraahaa in lagu tukanina awla wanaagsan markaas in lagu tukan naam dhinaca kale low هلو هلو الله وبركاته شيخ ربينا سؤال كويديو تفضل اخي جزاك الله خير شيخ برشاد waxaad u haysaa marka koobaad shaqada wanaagsan ilaahay aakhiriya dumba hagaajisay mariyo aamin جزاك الله خير aamin شيخ waxaan rabeyna kuweydiyo sheekh waxaan ahayn dhalinyaro laba dumar aan qabaa واقر waan kala qarin jiray labada gabdhood labadaba xalaal baan ku بدنا labadaba xalaal baan ku qabay waana kala qarin jiray واقر maalmaha kamid ay soogaadeen واقر anoon waxba ogeyn inay soogaadeen bay soogaadeen kadibna annaka wax warag kama hayo lama socdo واقر waa la heshiiyey واقر waxa la igu heshiiyey in silkaba la diido in googash lagu diido واقر imga mudaafir akhlaaqda markas afka wala ilaaliya googash la diido insha Allah waxa la yiraahdaa aftiga markasta ilmaha walaashiis dhashay tartan kulama jiro waxa laga yaabaa adeerka laakiin ilmaha walaalkiis dhalin tartan kulu jiro laga yaabaa wiilka kale oo ka fiicnaada rabo walaalka aftiga waa nugul yahay dhinaca hooyada ka socda tartan kama dhaxeeyo laakiin labadan waa isku aftirsanayaan labadan isla dhashay ilmahooda hal family isla yihiin marka tanaafus ka dhaxeeyo شيخ مع ها waxaan ku shaa mid nin sheekh oo cidka jira maxala waxaan ku soo xijinaa ya nin sheekh oo Sacuudi joogo Soomaali ah oo ku soo xijinaya waxa awoodada u soo xijinaya ayeeyo waxaan lacagtaana ku heshiinay lacagtii markaasi waa ku soo xijinaa waa ku cimrada hal mar aan bixinaa okay lacagtii markaasi dab marka waxay naadan maxaa la waa umrey xijka ma aadan waa umrey aan umra ku heshiin xijka ku heshiin amal saasay naadan waa ugu bood waa ugu bood waa karti maxaa wada arintaas shaqo hadda maxaa ka qaban karnaa anaga hadda ninka ugu bood adaab dhoos waa ugu bood atirbe lacag see waa in ku heshiin xalaal miya hadda markaatib waa haysta cadeen aad fiiri أد محاشنا كل هذا الشيخ أصولي الله أكبر ولكن وحن ربع إنا كويديو أنا جو وقت هوري
anigoo askari ahaa beri anoo hargeysa joogaa la yidhi biyo dhaami dad biyo u dhaami waa gartay saan biyuhu u dhaaminaya anoo biyihii dadka u shubayaa nin dhallinyaraahi xoog inta soo galow dadkii kala daadiya warka joog intaan lahaw dadkii dhan inta soo dardarow xoog ou dadkii daadiyey waa gartay baabuurka dushiisaan saaray uraan wataan bax ku siiya labada garab waa gartay waa cabaaday waa orday waa gartay maalintaasaa iigu dambaysay araggiisa mana aqaano dadka kama aqaan haa ii furan oo samay karaa lacag sadaqay isaga u niyeyso insha allah okay insha allah ballan waay baarak allah waxaan ku weydiinayaa masalan labada qof oo isqabta markii maaragtay jamaaci waxsaas ay samaynayaan waxyaabaha hadalka oo ku saabsan oo iyagoo jamaaci wixii samaynaya camal ma banaan tahay waa banaan tahay nacam wacado kelimad hadday ahayn kalama oo diinta kasoo horjeedo laakiin wax jaceylkooda iyo raaxadooda muujinaya deeta laa bas dhib ma lah wax saas un waaye bow macaana baay wax saas waa fiican tahay waaba loo baahan yahay kaas waa wax fiican waay maasha allah nacam diinta waa dhirigelinaysa arrintaas qadka telefoonka sheekho diin waxaa ku weydiin rabay su-aal oo politics ma ku weydiin rabin marka waxaa ku weydiin rabay su-aal oo caadi ah haye marka waxaa rabay sheekho inay sheegid mid dhalinyaro ah marka waxaa ku weydiin rabay sheekho diinta maxay ka qabtaa jeegada ah oo la xirinayo oo si oonan la dheereynaynin laakiin wax yar la gagaabinayo nacam masalada baarak allah fiik akhi ilaah khayra ku siiyo marka hore su-aal waxaa tiri siyaasi mawdi barnaamij siyaasi ma dalka dhowr jeer aan u sheegnaa laakiin dadka ayaga iska jecel siyaasadda ummadda dhan soomaalida dhanaa siyaasiyiin noqday nacam masaladaas qasaca la yidhaha qasaca nabiga calayhi salaam qasacada oo ah tinta in madax la reebo waa reebay nahyi kusoo arooray laakiin xukunkeeda wuxuu noqonaya karaahiyo oo hadda xaaraana lama gaarsiin karo maxaa yeele mararka qaarkood almacruufu curfan dad baa ya curf dhaqan ay u tahay dadka afrikaanka iyo meelaha kul dhaqan ay u tahay ayagoo diinka ahayn ayay saas iskaaga jirtaanba marka wixii dhaqanka haddii diinta ka hor imaanaynin waa la ogol yahay dhago oo dhagta u dhaadhici Ogon News